إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii التحفة السنية waxaan soo gaarnay aqsaamta kalaamka anwaacu lkalaam uu yidhi kalaamka nucyaalkiisa haadaa maxaluhu meeshaana looga hadlaa kalaamka nucyaalkiisa qaala wuxuu yidhi musanifka wa aqsaamuhu aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisu halaahatun waa saddex ismun waa isim wa ficlun waa ficil wa xarfun waa xaraf xarafkaasoo jaa-a yimid limacnan liajli macnan macno dartiisna u yimid waxa weeyaan kalaamka saddex ayuu u qaybsamaa u yidhi meeshaas waxaa ka ficneed inuu yidhaahdo kelimadaa saddex u qaybsanta sababtoo ah kalaamku saddex uma qaybsamee waxa saddexda u qaybsamaa waa kelima carabiya aan casharkii ku soo ogaanay shalay kalaam waxaa la yidhaahdo waxaan kaloo soo ogaanay mufrad oo ah kelima waaxida mufradaan shala soo ogaanay oo kelimo keligeeda ah sida maxamed cali ibraahim qaama min taasna waa soo ogaanay kelima waa hal lafdiyo mufrada maxamed oo kale cali oo kale qaama oo kale min oo kale kalaamna waa soo ogaano afar qayd wixii laga helo wey oo lafdi leh murakabna ah mufiidna ah wadcina ah labadooda waa inaad saas u kala garataa marka waxa saddexdaan u qaybsamaa kalaamka ma ahana waa kelimadda oo kelimadda carabigaa kelimad kastoo carabigaa saddexdaasay mid noqon inay isim tahay inay ficil tahay inay xaraf tahay kelimad afraad carabigu ma laha qur-aanka o dhan haddaad akrido saddexdaas waxaan ahayn laga heli maa lafdi kastoo qur-aan ka mid a mid waa ficil midna waa ism midna waa xaraf haddaad xadiid akrido waxaan saddexdaas ahayn laga heli maa haddaad carabi kale akrido waxaan saddexdaas ahayn laga heli maa kalaamka carbeed oo dhan midna waa xaraf midna waa ficil midna waa ism markaasuu yihi waa aqsaamu kalaamka qaybihiisu halaahatun waa saddex meesha waxaan idhi sida fiican waxa weeyaan kalaamka qaybihiisa maahani waa kelimadda kelimaddaa saddexdaan u qaybsanta ismu waa ismu wa ficlun ficil wa xarfun xaraf xarafkaasoo jaa-a yimid limacnan ey liyadulla macnan inuu macno tuso macnan waa maxay macnaheedu ey liyadulla macnan inuu macno ku tuso xuruuftiiyaa carabiga ahayd a laba loo qaybina xaraf macno ku tusaya iyo xarafan macno ku tusay xaraf macno ku tusaya isagaa mithaali doona sida min oo kale waa arki doonaa calaa oo kale macnahaasay tustaa uu ku dhihi doona can oo kale iyo xarafan wax macnaaba ku tusayn sida xuruuftii oo hijaa-iga alif ba ta tha jim xa kha kuwaas waxba ma tusaayaan kuwaas waxba ma tusaan macnaha soo ma jeedi mid walba asaga markaa sharxaya keliya un casharka maanta waxaa lagaa rabaa kelimad walba markaad aragto kelimadan ma isima ma ficila mase waa xarf inaad kala garato laba arrimood bis maskaxdaada waa inaad ku xifdidaa maanta midda koowaad waa maxay kelimad kastood aragtaa ism iyo ficil iyo xaraf saddexdaasay mid taha horta wax kaloo carabigaba kuma jiraan horta taas waa inaad ogaataa kelimaddu saddexdaas midayd tan labaadoo lagaa rabaa mid walba inaad waxa lagu oqonsado u fiirsato oo mar alla markaad aragto aad tiraa kelimadanu waa ism kelimadanuna waa ficil tanuna waa xarf mar alla markaad aragto inaad dhihi kartaa la rabaa oodan ku shakin calaamadaha lagu sheegin calaamadahaas maskaxdaada ku qabo wuxuu yidhi wa aqulu waxaan leeyahay alalfaadu alfaadda allatii alfaadda kaana alcarabu carab ay ahaayeen yastacmiluunahaa kuwa isticmaala fii kalaamihim hadalkoodana u isticmaala oo wa nuqilad naloo soo guuriyey ilaynaa annaga xaggeenna canhum canilcarabina lakaga soo guuriyey oo fa naxnu annagu natakalamu aan ku hadlayno bihaa alfaada fii muxaawaraatina doodaheenna markaan doodayno waxa aan ku hadlayno wa duruusinaa casharadayada duruustayada waxa aan ku hadlayno wa naqra'uhaa alfaada aan ku akrayno fii kutubinaa kutubteenna
wanaktubu bihaa alfaada aan wax ugu qorno ilaa ahlina ehliyaalkayga markaan warqad u dirayno wa asdiqaa'ina saaxiibadeena markaan warqad u dirayno laa yakhluu ka marnaamaa waaxidun hal xaraf oo minhaa alfaada ka mid a can an yakuuna inuu ahaado waaxidan midkaasoo min halaathati ashay 3 shay ka mid a alismi ism waalficli ficil waalxarfi xaraf waa sidaa wax alla waxaan ku hadlayno waxaan ku doodayno waxaan ku niqaashayno waxaan warqadaha ku qoranayno waxaan duruusta ku aqrayno kulligood 3daas kama bixi karto ism ficil iyo xarf kelimad aan 3daasaynu kuma jirto war ma garateen kama bixi karto 3daas kama bixi karto marka mid walba calaamadaa lagugu yeerin waa inaad calaamadaha ku garataa fiiri calaamadihii haddeer calaamadiyaa lagu siin ama alismu isimka fa huwa isimka fi luqati xagga luqada carabiga maladii kii weeye dalla tusay calaa musaman wax la magacaabayo kow horta luqa ahaan marka hore ku dhig horta ism maxaa la yihahdaa waa wixii wax la magacaabayo ku tusan hadda fiiri musajil aan nidhi waa kanuu ku tusay soo maaha durbaba musajil aan nidhi waa kanuuba ku tusay ama waxaan idhi beytun lafdigaas muxuu ku tusay guri ma ku tusay khalaas waa ism dhe hadda marka ilaa wax la magacaabayo ku tusay haye kitaabun aan nidhi fiiri kitaabun muxuu ku tusay dhawaaqaas ma ku tusay kitaabkaas kaasoo la magacaabayo sooma tusay warqadaas wax ku qoran yihiin soo kuma tusay marka waa ism dhe ficilna maan xarafna maan xayla wuxuuba ku tusay kaas soo ma jeed haye yadun dhe yadun maxay ku tusay gacantaas soo maha hadda marka ma ism mise waa ficil waa ism ilaa wax daatadaan waa ku tusay soo ma jeedi marka wixii ku tusa marka lagu dhawaaqa daata ku tusa oo wax ku tusa la magacaabayo wax la magacaabayo wixii ku tusa waxaad leedahay waa ism intaas adiga maskaxdaada inaysan ka bixin muxuu ku yidhi fiiri ama alismu ism fa huwa ism fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaala uu ahaaday maladii kii weeye dalla tusay calaa musaman wax la magacaabayo war waxa la magacaabayo wixii ku tusaa waa maxay waa ism intaas maskaxdaada hadday qaba weyda ka waran marka aadna leedahay naxwan barana wa fi istilaaxi naxwiyiina naxwoleyda heshiiskooda marka fiiri naxwoleyda waxay ku heshiiyeen inay ism u yaqaaniin bal fiiri wa fi istilaaxi nuxaati ama naxwiyiin wa fi istilaaxi naxwiyiin qolada naxwoleyda ah oo naxwaha loo nisbeeyey heshiiskooda waxa weeye isimku kelimatun al-ismu isimkii kelimatun waa kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macno kelimad macno kutusayda wey macnaha kutusay waa maxay waa kii hadda aan soo sheegnay waa musam shay la magacaabayo kutusay macnaha lagu sheegayo waa shayga la magacaabayo fii nafsiha nafsadeeda utuse macnaha nafsadeeda utuse marka lagu leeya maxaa la iska ilaalina maxaa laga ixtiraaza kelimad kaleeto uma baahno in lagu daro fiiri waxaan arki doonaa 3 kelima mid kamid a oo aan iyadu macno kutusi karin haddaan kelimad kale lagu darin keligeed haddii meel la dhigo waxba kutusimi waxay u baahan tahay in mid kale lagu daro laakiin isimka isagu sidaas maaha isimka keligiis marka lagu dhawaaqo isla markiiba waxba kutusa fiiri qamiisun dhe isla markiiba muxuu ku tusay marada halkaas taala soo ma jeedi ya qamiisun dhe khalaas waa ku tusay ha jawaal dhe jawaal muxuu ku tusay midka mobileka soo ma jeedi jawaalun markaad ku dhawaaqday magacii muxuu ku tusay waa kaasa mobilkaasoo ku tusay kelimad marka macnan naftadeeda u tusto waay ism mar alla marka lagu dhawaaqaba shay ayuu ku tusaa uma baahna kelimad kale in lagu daro marka wuxuu ku yidhi kelimatun al-ismu soo qadaro mubtadihi al-ismu ismku kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo dalla tusay calaa macnan macno fii nafsiha nafsadeeda u tusay uma baahna kelimad kale walam taqtarin aan lana xiriirsan bizamaanin wakti isimku markii lagu dhawaaqo wakti hore iyo waktigan hadda la joogo iyo waktiga soo socda midna uma baahna mana ku xirna isla markii lagu dhawaaqo daatadaasu ku tusa hadda haddii la ihahdo jawaalun muxuu ku tusa wakti miyuu ku tusa shalay jawaal u ahaa hadda waa jawaal beri jawaal u ahaana hayday beri hadda balkan jawaal iska ahaana siisa ha fiiri marka waxa weeyaan shayga marka lagu dhawaaqo daata ku tusaya shay la magacaabayo ku tusayo ee wakti aan shaqo kulahayn
waa jirta nasba dhowr oo waqti ku tusta sida fiir waxa leedahay sabuuxun cabitaanka oo aroortii la cabo waa qabuuqun kan habeenkii la cabo waa galabtii soo ma jeedid waxaas ma badna haas waxa ku fal ka soco waaye wuxuu ku yiri walam taqtarim zaman lama xarisan naxwu mithaal muhammadun hada muhammad muxuu tusa ma waqti tusa shalay miyuu tusa mise maanta midna ma ku tusa mise bariyo ku tusa wax ku tusa muxuu ku tusay muhammadun markaan muxuu tusa daatada wadaadka halkan ka soo jeeday soo ma jeed muhammadun daatadaas ku tusa wax kale kuma tusay haya aliyun fiiri aliyun ali william kaas meesha taagan ku tusa aliyun wax kale kuma tusay daatadaas ku tusa soo ma jeed haye wa rajulun nin rajulun daatadaas ku tusa soo ma jeed haye wa jamalun rati jamalun marka ku dhawaaqdo muxuu ku tusa ratidaas afarka adin loo maaragtay surka dheer halkan ku tusa wa jamalun rati wa nahrun wabi muxuu ku tusa biyo qulqulayo Soomaa biyahaas meesha socdo biyahaas dareerayo qulqulayo meesha marayo soo ma jeedid wa tufaahatun mir yaro maaragtay qudaar la cunayo ku tusa tufaahatun ka tiraado wa daatadaas ku tusa bis hadda tufaahatun ka tiraado dhawaaqaas muxuu ku tusay waqti hore shala ma daran ma ku tusa maanta buu ku tusa mirtaan shala tufaax ay heedad maantana waa tufaax barina tufaaxidaas ahaanay marka magacaas marka ku dhawaaqday daatadaas ku tusa haye walaymunatun lin meeshaas lafdigaas marka ku dhawaaqda laymuna lintaas ku tusa sooma خلاص وعصم فيري هاتاسا بكورة halkaas garka guday taasay ku tusa marka tira asa wax kale kuma tusaydo kaasa la magacaabo soo ma jeedin isma leeyahay waxaas wuxuu ku yiri fa kullu waahid mid kasta oo min hadii alfaadan kamida yadullu wuxuu ku tusa ala macno walaysa zamanu waqtina daakhilan mid soo galaya ma ahan معناه في معناه معنيس وليس زمان وقته داخلا مد سو غليا معها في معناه معنيس فيكون marka wuxuu noqonaa lafdigaasu ismu noqonaa haye ismu marka kaas arwa gudub hadda kadib qofkii ismu qoway saga istayay wana meeshan ku laalaabata oo maskaxda ku qabata hadda ficlan galiya bal ficil sida lagu garto wa amal fi'lu fi'il fa huwa fi'il في اللغة العربية دحديده حاله او اهاداي الحدث ودعض ما تقانا دعض مفهميده هي حدث واحد عيوي اما دحي دونا اما هدا سocdo ما هنداتو كلي حدث waxa weeye dhacdo wax dhacay ama waxa kadib dhici doona ama waxa deerba socdo dhacay wuxuu ku tusa فيري فعل هذا اللي بيرادها وواحد كهر للسمي اما حدا بالله سمينا اما دب لا سمي دون ارين wax la sameeynayo way ficil wax la sameeyay hada kor ama hada la sameeyna ama hada kida la sameey doona soo ma jeedid marka hadath oo ku tusaa ku yiri xaga luqadi way istilaahi fiiri marka wuxuu ku yiri wa fi istilaahi nahwiyina culimada nahwiyada oo naxwada loo nisbeeyay heshiiskooda maxay ku heshiyeen inay ku magacaabaan ficil fiiri wax ay ku heshiyeen inay ficil u bixiyaan bal fiiri adiga ficil wax ay u bixiyeen ay ku heshiyeen ficil loo bixiyo kalimatun wuxuu yiri huwa kalimatun kalimad weeye ficilkii kalimadaas oo dallat tustay huwa soo qadaro ee kalimatun khabar wadi huwa انت ضمير كسو قدرته المذكره كلمه مؤنث خبر ودي وان سواء وقاعده waxa la yiraahdaa waxa weeyaan kelimad lafdiga ضميرka hadii waxa weeyaan uu u laabanayo meel mudakar ah khabarkuna mu'annath noqdo kii la raba lagu mudaabaqeeyo wuxuu ku yiri huwa fi'ilki kalimatu wa kalimadaas oo dallat tustay ala macno fi nafsiha nafsadeeda u tusay halkaas maxaad ka ogaatay dhankaas marka ficilku muxuu kala mid yahay isimki oo macnaha ficilku macnuu tusaahay kelimad kale uma baahna in lagu daro asaga macnihiisa iska tusaa
uma baahne marka uu macno tusayo in kelimad kale lagu soo daro oo la yidhaha si uu macno u faa'iideeyo kelimad kale ha lagu daro sidiisuuba macno ufaa'iidey karaaba sidiisuu macno ufaa'iidey karaaba so ma jeedid waaya kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macnahaasoo fii nafsiha nafsadeeda ku tusay ama fii nafsiha nafsadeeda u tustay waqtaranad lana xiriirsatay biaxadil asminati waqtiyaalkii mid ka mid a waqtiyaalkii athalaathati oo saddexda ahaa soo ma jeedid waxa weeye kelimadan macnay tusay ficilkaa laakiin maxay isimka uga duwanta macnahaasu waa inuu saddexda waqti mid la xidhiirsado waqtigu sidiisaba waa saddex adiga haddeer laga bilaabo hadda markaas aad hadlaydo wixii ka horreeyey maxaa la yidhahdaa maadi markaas aad hadlaydo wixii ka horreeyey hadday raba adduunka markii la bilaabo ha noqoto hadday rabtaan adduunka intaan la bilaabin ha noqoto intaan cirkii dhulka la abuurin ka hor xataa waa iska maadi soo ma jeed markaas aad hadlaydo wixii ka horreeyey waxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa maadiyaa la yidhahdaa haye maxaa soo haray markaan aad hadlaydo waqti hadda soo kuma dhex jirno hadda waqtigaan ku dhex jirna soo ma jeed maalinaan ku dhex jirnaa maxaa la yidhahdaa xaalaa la yidhahdaa waa waqtiga hadda la joogo xaalaa la yidhahdaa markaas aad hadlaydo wixii ka dambeeyana ilaa meelay ku dhamaato aanan garayn maxaa la yidhahdaa mustaqbal waqtiga soo socda waa soo ma jeedid marka ficilka waqtigu waa saddexdaas saddex waqtigu waa maxay waa imisa waa saddex waqtigii tegey maxaa la yidhahdaa maadi waqtiga hadda la joogana maxaa la yidhahdaa xaalo waa midkaan hadda ku dhex jirto waqtiga soo socdana oo inaad gaarayaadan ogey waqtiga soo socda maxaa kamid a hadalkan markuu kaa soo baxay wixii ka dambeeya wey walow ilbirksi baa ka dambayday maxaa la yidhahdaa mustaqbala la yidhahda waqtigu soo saddex maaha marka ficilka macnaha uu tusaya saddexdaas mid kamida waa inuu la xiriirsado waa inuu ku tuso macno dhacdo dhacday markaas la hadlaayo ka hor dhacdo dhacday ama se wax dhacaya saacaddaas la hadlayaba socdaba ama waxa weeyaan waqtigan la hadlaayo kadib u dhici doona walow ilbiriksi kadib ha dhaco haduu rabo laakiin markaas la hadlaayo wuu ka dambeeya waa mustaqbal markaasu wuxuu ku yidhi waqtaranad waa inay la xiriirsato biaxadil asminati waqtiyaalkii mid kamid a athalaathati oo saddexdaha allati waqtiyaalkii hiya waqtiyaalku almaadi mid tegey ah walxaalu iyo midka hadda la joogo walmustaqbalu iyo midka lasoo qaabilayo hadda nagu soo socda saddexdaas waqti mid kamida waa inuu la xidhiiraa macnuhu markuu ficilku macno tusayo wadalika mithaalka naxwi waxaa leedahay kataba waa qoray lafdigan muxuuna tusay u fiirsada marka kataba a ficila muxuuna tusay laba shaya laga rabaa fiiri inuuna tuso labada shay waa maxay horta dhacdo waa inuuna tusaa wax la sameeyey ko haddana dhacdadaas ama waxaas la sameeyey markaas aan hadlayno ka hor waa in la sameeyey oo zaman iyo macno fiir aa laga rabaa kelimadda waqti inuu faa'ideeyo waa laga rabaa zaman macnana waa laga rabaa soo ma wuxuu ku yidhi fa inahu lafdigan oo kataba ah kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo daalatun ku tusayda calaa macna macno wa huwa macnaha ay tusaydaa alkitaabatu qoraal weeye soo ma jeedid kataba waa qoray laguma dhihin hadduu qora qoraalkii hadda socda laguma dhihin hadhow ayuu qori doonaana laguma dhihin hadda kadib qoraal laguma dhihin maxaa lagu yidhi waa qoray hadda kooru qoray soo maha maxay ku tusay marka laba macno macnaha koowaad waa maxay waxa weyan xadath wey xadath dhacdo waa maxay waxa dhacay oo la sameeyey qoraal wey waxa la sameeyey soo maha muxuu kaloo kutusa waqti oo waqtigaas waa waqtigee waa waqti tegey hadda ka horaa la qoray wey marka waqtina waa kutusay macnana waa kutusay kaasoo kale marka maxaa la yidhahdaa kaasoo kale maxaa la yidhahdaa waa ficil wey wuxuu ku yidhi fa inahu lafdigaanu daalun wuxuu tusaa calaa macnan macno wa huwa macnuhu tusaa alkitaabatu qoraalka wey aydan noqosha aydan kuma jirto waxa wey wa huwa lafdi fa inahu lafdigan dhe fa inahu lafdigaanu kelimatu wey kelimada daalatun tusayda calaa macnan wa huwa macnahay tusayda alkitaabatu waa qoraal wa haada almacnu macnahaanu muqtarinu wuxuu la xidhiidhaa bizamaani waqtigaasoo almaadi tegey waqti tegey ayuu la xidhiidhaa soo ma jeedo wadalika mithaalka naxwo yaktubu hadduu qora fiiri yaktubu hadduu qora halwi yaktubu hadduu qora bal u fiirso adiga lafdigan marka yaktubu ah bal fiirso marka fa inahu lafdigan yaktubu ah maxaan ka rabna horta yaktubu inuu tuso labo
ila waa ficli labo labadaas maxay tahay macno wax la samaynaayo iyo waqti marka wuxuuna tusaa wixii la samaynayo waa maxay waa qoraalka waqtigiina de waa haddeer wey haddaa la samaynaya waa waqtigan la joogo oo xaalada ah wuxuu ku yidhi fa inahu lafdigaas oo yaktubu ah daalun wuxuu ku tusaa calaa macnan macno wa huwa macnuhu ku tusaa alkitaabatu qoraal wey sida lafdigii hore kuu tusaayay aydan noqoshee wa haada lmacnaa macnahan oo qoraalka ah muqtarinun wuxuu la xidhiidhaa bizamaani waqtiga alxaadiri hadda la joogo waqtiga hadda la joogo la xidhiidha oo waxaa lagu yidhi yaktubu hadduuba qora qaraf haddeer ka wada maqlay hadduuba qora waa kana hadduuba qalinkii gacanta ku haya marka waqtigaanu la xidhiidha wanahwu uktub qor oo kale waay fiiri qor algu yidhi lafdigaas waa ficil laba macnaa laga raba inuu tuso ko wax la samaynayo ko iyo waqti uu la xidhiidho labadaasaa laga rabaa soo ma jeedaan uktub qor algu yidhi marka uktub qor haddii lagu yidhi ogow wax hadda ka hor la qoray maaha hadda ka hor lama samayn oo maadi maaha waqtigu fiiri horta macnaha uu tusaay waa maxay qoraal soo maa waqtiga uu kutusaayo maahan hadda ka hor oo haddaaba lagaa dalbaa soo ma jeedin hadda wax socdana maaha oo adoo qoraalkii gacanta ku haya miyaa lagu dhihi lahaa uktub qor miyaa lagu dhihi lahaa ay taas waa taxsiilulxasila le wax horay u dhacay in haddana la yidhaha lasoo xasiliyo qalad waa ee waxa weya qoraalka hadda kadib bilowa soo ma jeedin marka waxa weeyaan muxuu ku faa'iideynayaa uktub maxay ku faa'iideynaya labo midka koobaad maxay tahay horta macno waa maxay qoraalka wey maxay kaloo kuu faa'iidey ku tustay waqtigaas waa maxay oo ay dhacdadu dhexdiisa dhacaydo waa midka soo socda mustaqbalka ilaa markaas lagu amray kadib aad bilaabay soo ma uktub qor marka la yidhaha qalinaad soo qabsan markaad soo qabsan waa bilaabay waa waqtigii marka lagu amray kadib soo ma marka waa mustaqbal wuxuu ku yidhi fa inahu lafdigan uktub ah kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo daalatun tusayda calaa macnan macno wa huwa macnahaasuna alkitaabatu waa qoraal aydan noqoshee wahaadaa kan oo qoraalka ah macnan macno weeye macnahoo muqtarinun la xidhiidha bizamaani waqti la xidhiidha waqtigaasoo almustaqbali lasoo qaabilayo alladii waqtigaasoo bacda zamaani takalumi hadlidda waqtigeeda ka dambeeya mustaqbalka waxaa lagu tusaa wax fog kaliya maaha inuu fog yahay inuu dhow yahay labadaba waa mustaqbal marba marka la hadlayo hadduu ka dambeeyo mustaqbalaa la wadayda waaya wuxuu ku yidhi wa mithlu haadihi tan waxaa lamid a wa mithlu haadihi alfaadi alfaadan aan soo sheegnay waxaa lamid ah nasara a lamida iyo wax ka dambeeya wa mithlu haadihi alfaadi alfaadan haddaan soo sheegno kataba yaktubu uktub waxaa lamiduu ku yidhi nasara waa u gargaaray yansuru waa u gargaaraa wansur u gargaar nasara waa u gargaaray wa yansuru hadduu u gargaaraa wansur hadda kadib u gargaar nasara laftigaas muxuu ku tusay labo horta macnuu ku tusoo gargaarid ah gargaar in la sameeyey haddana wuxuu ku tusay gargaarkaasu waqtigii hore tegayuu dhexdiisu u dhacay fiiri wa yansuru hadduuba u gargaaraho gargaarkii wadaaba muxuu ku tusay yansuru wuxuu ku tusay labo macno horta waa ku tusay macnuhu waa gargaaridda wuxuu kaloo ku tusay macnahaasu waqtiga u dhacay hadda inuu tahay waqtigan la joogu socdaa wansur hadda kadib u gargaar muxuu ku tusaa laba shay ku tusaa wansur mid waa maxay macno la samay rabo hadda kadib oo ah gargaarid tan labaadna muxuu ku tusaa waqtiga oo gargaarkaas dhexdiisa uu dhacayo oo ah waqtiga hadda la hadlayo kadib soo ma jeedin kulli alfaadama sidaas wa fahima waa fahmay mas'aladiiyuu gartay fiiri wa yafhamu haddeeru garanaaho maskaxdiisayba ku socotaa casharku haddeer la akrinayaa waaba ku socotaa hadduuba fahmaaba fiiri wafham war hadda kadib bal fahm hadda kadib fahm marka fiiri waa intii oo kale fahima maxay faa'iideyday labadaas maxay tahay macno oo ah dhacdo dhacday oo ah inuu wax fahmay taas waa mid maxay kaloo faa'iideeyey macnahaasu waqti hadda ka hortegay inuu dhacay oo fahmadaan hadda ka horu masaladan garto fahmo wayafhamu maxay ku tuseen labadaas maxay tahay horta macno oo ah fahmid uu hadda masaladii ku socotay uu garanayo iyo waqti oo ah hadda waqtigan jooga dhexdiisa inuu fahm ku dhacay wafham waa maxay tusi laba macno horta macnaha waa maxay koobaad laba shay ku tusayda mid waa macno oo ah fahmid inay hadda kadib dhacaydo
talabaadna waa maxay waqti oo ah fahamkaanu hadda ka hor ma dhicin qofka laleeyahy fahm haddeer waqtigaana ma socdo laakiin hadda kadib fahmaa laleeyahy waqtiga soo socda fahamku ha dhaco haye wa calima waa bartay wa yaclamu waa garanaa wa calima hadda ka hor u gartay masalada ogaad wa yaclamu haddeer saacaddan u garanaa waclam garo waa la mid ayadan adaa laga raba inaad kasoo dhalaalido macnihi iyo zamankii wa jalasa waa fariistay hadda ka hor u fariiseeday jalasa waa fariistaa lagu yidhi fadhigu horta waa macmu soo maaha haddana waqti horuu dhacay soo ma jeedid wayajlisu waa fariisanaa ficiluu samaynaa oo ah fadhi ko haddana waqtigu samaynaa waa waqtigan hadda la joogo wajlis fariiso waa naga fariiso wa daraba waa garaacay hadda ka hor u garaacay wa yadribu waa garaacaa wadrib garaac mid iska suufiyaho meel ku cibaadaysanayo aalinihu nin cibaadaysanayaa tahay ma naxwada berati naxwada maa berati ale waxoogaa inaad kitaabkii sunadii wax ka ogaata macnaha waa loo baahan yahay markaasuu ii bilaaba kaasaa la yidhi mithaal si lagu tusaaleeyo bal ficilka aad u fahamto daraba zaydun zayda wuxuu garaacay camran markaasuu yidhi iigu kaadi sababtu u garaacay hayd uu ka raba markaasaa la yidhi war waa mithaal dadkaa wax lagu fahamsiiyaa markaasuu yidhi wax garaacid la yidhaha maba dhicin miya markaasaa la yidhi ma dhicin waxbaa lagugu mithaalinaya markaasuu yidhi wax dana kama lihi cilmi been ka bilaabanayo kuma laho iska tegey meeshii iska galay suufinimadiisu ku dhintay asma kitaabki hadduu luqadii fahmi wayso kitaab sanu fahma waa inaad suufigaaga ahaataa marka wixii aad suufinimadan iyo dalaalka uga bixi leed soo maha inaad diiday adiga ya adna suufinimadaada la fadhi le waa mogta haddaad wax bara diido adna dalaalkaagaad la fadhine soo ma marka waa masala muhim marka lagu leeyahy waxbaa la garacay moodayna meesha la isku dilay wax isdilay midna lama arko adaa wax lagu fahamsiina luqa carabiya lagu baraa meesha yaa ka cararaysa suufigi waay wa daraba waa garaacay wa yatribu waa garaaca watrib hadda kadib garaac waxaasoo macnaha adigaa laga raba inaad soo dhalaalido walficlu ficilkii uu ku yidhi calaa halaathati anwaacin waa 3 nooc fiiri ficilkii ma uqaybsamaa 3 masaladaas waa muhim inaad ogaato calaa halaathati anwaacin 3 nooc ahaaday maadiyu ahaaday maadi ma taqana waa mid hadda ka hor dhacay ficil hadda ka hor dhacay maadiya la yidhaha kaas wa mudaaricun mudaaric maxaa la yihahdaa mid hadda kadib hadda saacaddan socda hadduuba socdaa oo dhicidii ku socotaa ama hadda kadib u dhici doona ko wa amrun amarna maxaa la yihahdaa waa ficilka hadda kadib inuu dhaco la dalbayo hadda kadib ayaa waxa wey inuu dhaco la sameeyo ayaa la dalbaya saddexdaas u qaybsana falmaadi maadi maxaa la yihahda miduu marka kugu qeexa falmaadi ma ladii kii weeye dalla tusa calaa xadatin dhacdadaasoo waqaca dhacay fi zamaani waqti alladii waqtigaasoo qabla zamaani takalumi waqtiga hadlidda ka horeeya maadi waxaa la yidhaahdaa ficilka ku tusa arrin dhacday ama la sameeyey markaas la hadlaayo ka hor wadaalika mithaalka naxwu kataba hadda ka hor uu qoray wa fahima hadda ka hor uu fahmay wa kharaja hadda ka hor uu baxay wa samica hadda ka hor uu maqlay wa absara hadda ka hor uu arkay wa takalama hadda ka hor uu hadlay wastakfara hadda ka hor uu dambi dhaaf dalbay washtaraka hadda ka hor uu la wadaagoo la yeeshay shay kulli maxay alfaadaan ku tustay 2 shay mid waa maxay macno dhacay tan labaadna muxuu ku tusay waqti oo ah hadda ka hor labadaasay ku tusay waaye walmudaaric ma ladii kii weeye dalla tusay calaa xadatin dhacdo xadadkaasoo yaqacu dhacaya fii zamaani takalumi waqtiga hadlidda o bacdahu ma ka gadaal ficilkan maarata mudaarica ah 2 macnuu aqbala isagu hal waqti iskama le horta wuxuu kutusaa ficil dhacayo la samaynayo laakiin 2 macno waa aqbali karaa waxa weeyaan haddeer saacaddaasuba socdahoo dhacaya ficilka ko waqti dambuu dhici doona labada waa kutusaa labadaba waa aqbala isagu waxaa jira calaamadaha hadday la xiriirsadaan u kala cayina oo midna hadduu ka dhigaya hadduu la xiriirsado calaamadna hadday la xiriirsato hadda kadib ka dhigi oo maalan fiiri mithaaladaasba aan ku arkayna aan ku mithaali doona markaan mithaalayno wadalika mithaalki naxwu yaktubu waa qoraa yaktubu marka fiiri waa ficil mudaaric 2 shayna tusi mid waa macno oo waa maxay waa ficil dhacayo oo ah qoraal maxay kaloo na tusi waxay kaloo na tusi
zamankaas marka haddii ficilka aan wax calaamadu la xidhiidhsan sida hadda yaktubu oo kale labuu aqbali karaa haddeeraaba qoraalkii socdaa qalinkii iyo gacantii iyo warqaddii way saarayihin macnahaas waa aqbali karaa waa tusaa wuxuu kaloo aqbali karaa yaktubu waa qoraaho galabtuuba qori doono ama nus sac kadib u qori doono mustaqbal labada waa aqbali karaa laakiin calaamadaa jira calaamadahaas dee kawaakib baa loogu tegi doona insha allah matalan hadda laakiin laba calaamaan kasoo qaadayna alaana oo kale la xiriiri alaan hadda la xiriirdo muxuu noqonaa saacaddaana qoraal ku socda xaalow noqona mustaqbal markaas ma noqona yaktubu waa qora alaana saacaddaanu qoraalkii ku wada fiid sawfa la xiriir ta alaanada ka saarti yaktubu sawfa yaktubu dib danbuu ka qori doona sawfadu markay la xiriirsatay maxay ka dhigtay mustaqbalka soo socda dib alaanana markay la xiriirsatay maxay ka dhigtay hadda labada markii laga saarana labadii wuu aqbali karaa mid gooniya labada yaktubu waa qora iska dhig qoraalkii hadda inuu socdaana waa suurtagal inuu dib ka qori doonana waa suurtagal intaas ma la fahmi karaa haye wadalika mithaalka naxwu yaktubu waa qora wayafhamu waa fahmaa dhe wayafhamu waa fahma wayakruju waa baxa wayasmacu waa maqla wayansuru waa u gargaara wayatakalamu waa hadla wayastakfiru dambi dhaafu weydiisana wayashtariku waa la wadaagaho waa la yeelana shurku la noqona soo ma jeedin marka ficil kasta haddaan anugu yaktubu kuu soo sharaxay kuwaana waxaa rabtaa mid inaan ku yidhaahdo waxa wey yakruju hadduu baxa ama hadhow baxa labadaasay tusay maad rabtaa maskaxdaadu maysan shaqaynayn marka adiga ma dhagaxaad maskaxda ka shaqaysi walamru amara hare marka maladii kii weeye dalla tusay calaa xadathin dhacdo ficilu ku tusay wax la sameeyey wax la samaynaayo dhe walamru amar maa shay wey dalla tusay calaa xadathin dhacdo xadadkaasoo yudlabu la dalbayo xusuuluhu inuu soo xasilo bacda zamaani takalumi hadlidda waqtigeeda ka gadaal fiiri amar isaga wuxuu ku tusaa waxa weeyaan dalab oo dad laga dalbayo inuu ficil sameeyo markaas la hadlaya kadibna uu sameeyo fiiri qofaa waxaa laga dalbin ama dad badana waxaa laga dalbin markaas la hadlaayo kadib inuu wax sameeyo waxaa la leeya waxaa samee amar saasaa la dad maqasho waxaa samee alale fiiri waxaa samee alale walamru amar maa shay weeye dalla ku tusayuu ku yidhi walamru amar maa shay weeye dalla tusay calaa xadathin dhacdo xadadkaasoo yudlabu la dalbayo xusuuluhu inuu soo xasilo bacda zamaani takalumi hadlidda waqtigeeda ka gadaan wadalika mithaalka naxwu uktub qor fiir hadda maxay ku turta uktub horta in la dalbayo qof laga dalbayo qoraal inuu sameeyo qofaa laga dalbin qoraal inuu sameeyo mar haddii lagu yidhi waa laga dalbayaa wixii wax hadda ka hor dhacay maahan ko wax hadda socdana maaha waa wax hadda kadib ah soo ma jeeda waa mustaqbal waa mustaqbal wafham fahm ala leeyahy masalada hadda kadib fahm wey soo ma jeeda laba shay marka ku tustay in la dalbayo fahm in la helo fahm in la helo in la dalbayo ko maxay kaloo ku tustay hadda kadib inay ta waaya wakruj bax aada leeda wasmac maqal aada leeda wasmac maqal aada leeda wasmac maqal ayaad leeda wansur u gargaar ayaad leeda u gargaar ayaad leeda watakalam hadal ayaad leeda hadal fiiri wastakfir dembi dhaaf ilaahay weydiiso aad leeda washtarik war qofkaan la yeelo arrintan oo shirka la noqoad leeda wa amal kulli waxaas dhan waa wada amal wa amal xarfu xaraf fa huwa xarafkii fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaal u ahaaday adarafu dhinac ayaa la yihahdaa luq ahaan xaraf haddii la yihahdo waa gees wa min annaasi man yacbud llaha calaa xarfin dadki waxaa ku jira gobol waxa weeyaan diinta lukeenad ku ah geesgeesu alla u caabudi diinta wadageli me maxaa laga rabay ya ayuha aladiina aamanu dkhuluu fi silmi kaafa war diinta wadagala saasaa la rabay soo ma gobol aan wadagelayno gees ka taagan wa min annaasi man yacbudullah calaa xarfin geesuu ka taagan wuxuu le waa baroobaynaha iisu fa in asaaba khayrun itma'ana bih hadduu markuu dhaqaalo iyo caafimaad iyo maasha allah ku helo wuxuu le diintoo kale lama arag maasha allah wa hadday fitna asiibtana ya inqalaba calaa wajhi khasira dunya walaakira dhibaato waa gaajooday waa cabsaday cadow badan uu yeeshay dhibaato la kulmay baadilkiisii u laabana wuxuu leeyahy war meeshaan waa lagu dhibtaday o dab wey dhuxul wey gacan laguma hay kare
marka xaraf haddaad maqasho luqa carabiya waa maxay waa dhinac luq ahaan wey taas hadda maxalshaahidkayagi aan usoo dhacan wuxuu ku yidhi wa fi istilaaxi nuxaat wa fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda heshiiskooda maxaa la idhaha xaraf huwa xarafkii kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macno haye nafsadeeda mii tusi keligeed mii tusi kartaa may fiiri fii gayrihaa kelimad kale ka tusee macnaha isi markaan marayna maxaan idhi fii nafsihi macnaha u tusi kara xaraf markaan maraynana maxaan idhi ficil markaan maraynana maxaan idhi fii nafsihi utusa laakiin xaraf markaan marayna maxaan idhi fii gayriha ayado xarafku keligiis macno ma tusanta meel istaago waa in lagu daro kelimad kale marka qayrkaas waa maxay isim iyo ficil midkaas mid kamida wey xuruufta gobolka mid ah markii lagu daro isim ayuu macno ka tusa oo isimkaa lagu dara oo u galaa xuruufta gobol ka midana ficilkuu galaa markaasuu macno ka tusa xuruufta gobol ka midana labadaba waa gela kan hadduu galana macnuu ka keeni hadduu kan galana macnuu ka keeni sida xarfu istifaamka oo kale hal oo kale fiiri hal yastadiicu rabuka fa hal antum shaakiruun antum soo isim maaha soo hal kama hormarin yastadiicu soo ficil maaha soo hal kama hormarin marka fiiri hal hadday isim gashana macnay ka keeni oo istifhaamay ka dhigi hadday ficil gashana macnay ka keeni istifhaam ayay ka dhigi maxaa macna istifhaamay ka faa'iideynay xaraf marka waa saas labadaba waa geli kara macnuu ka keeni xarafna isimka keliyuhu gala sida xuruufta hoos dhigto noo imaan doonta xuruufna ficilka keliyahay gelaaya sida kuwa ficilka mudaaric kordhiga iyo kuwa jasmiye u fiirso marka xaraf wuxuu ku leeyahay asagu keligiisna meel istaaga macno ma keeno muxuu u baahan yahay in lagu daro kelimad kale kelimadaas kale maxay tahay waa isim ama waa ficil markii kelimad kale lagu daro macno ka keeni kara xaraf isaga keligiis inta meel istaaga macno ma keeno xaraf intaas inaad fahantaa waa muhiim wuxuu ku yidhi kelimatun wey xarafkii kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macno fii qeyriha iyada qeyrkeed ka sotay wadalika mithaalki naxwu min oo kale wey fa ina haada lafda lafdigan oo min ah lafdigan oo min ah kelimatun wey kelimadaasoo dalla tusayda calaa macnan macno wa huwa macnihii alibtidaau bilow meesha wax ka bilowdeen meesha ficilka arrinta laga hadlaya ka bilaabatay uu ku tusaa subxaana aladii asraa bicabdihi leylan ilaahay waxaa nuqsaan ka hufan addoonkiisa habeen dheelmiyey halkuu ka bilowda dheelmatu subxana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami fiiri min soo maaha dheelmadku marka halkuu ka bilowda masjid alxaraam ka bilow min almasjid alxaraam fiiri mintu maxay tustaa ibtidaa meel wax ka bilaabanayaan waxa weya meel wax ka bilaabanayaan meel wax ka bilaabanayaan ayuu tusaa sidaas weeyaan meel wax ka bilaabanayaan ayuu tusaa oo ah waxa weya sida hadda mis dheelmintu meeshay ka bilaabatay sidaas wey waaye wuxuu ku yidhi fa ina haada lafda lafdigan min ah kelimatu wey dalla tustay calaa macnan macno wahuwa macnihi alibtidaa wey wa haada lmacnaa macnahan laakiin oo ibtidaa ah laa yatimu ma dhamaystirmayo xataa taduma ilaa aad adigu ku darto ilaa haadihi lkelimati kelimadan hayraha kelimad kale oo qeyrkeeda waa inaad kelimad kale oo qeyrkeeda aad inta soo qaaddo ku darto laakiin min keligeed adaad meeshaan dhigto oo tiraahdo min wax laga faa'iidayo male meel wax ka bilowdayna kutusime wax kalena kutusime min aad iska tiri maxay u baahan tahay mintaan kusoo dar kelimad kale xataa taduma ilaa aad ku darto ilaa hadihi lkelimati hayraha iyada qeyrkeeda oo fataquula aad tiraahdo dahabtu waan tegey min albeyti yaan ka tegey fiir min albeyti guriga ayaan ka tegey min albeyti marka mintii goormay faa'iideyday albeyti markay heshay albeyti yaa lagu daray marka maxay ku tustay meesha aad socodkaagu ka bilowday markaad tegayday halkaad ka socodkaagu ka bilowday guriga min albeyti yaan ka tegey fiir maalan tusaalaan ula jeedaa ogeed ee albeyti keliyaba taagnaan isim kastoy gasho macnahaasaa ka mid a macnahay faa'iideyda macnihiidu waa badanta lakin taasaa ka mid a amhilatu mithaalo amhiladaasoo lil ismi isimkii usugnaaday haye mithaalo oo isimku leeyahy oo kutusaya wax la magacaabayo fiiri weligaa maskaxdaada ay ka bixin macnihii ismi wax la magacaabayo waa inuu kutusa kitaabun fiiri kitaab qalamun qalam dawaatun anqaas miyaad garanayda qadda oo la riiqo ma taqaan qad wax lagu qoro way dawaat waxa weeyaan
reer miyiga markii lahaa waxaa la samayn jiray caana inta dhuxul lagu qaso markay madoobaata wax lagu qasi qari jiray soo ma marka ama xabag reer magaalkana xabag yaqaan xabaga inta wax lagu biyo lagu daro markaas wax madow lagu daraa dhuxulaa lagu daray ama bateriga oo kaleeto dhuxushiisa ayaa lagu daray markaas ay madoobaan waxbaa lagu qori dawaatun anqaasde ama qadde haddii kaleeto anqaas dadan garin qadde haye kuraasatun dhowr warqadood kuraasa maxaa la yihahdaa kitaabkan fiir hadde toban camal warqadood iskugu xiran warqadaha yarkaa isku xiran intaasa la yhaha kuraasa kitaab man dhamo warqadaha yarkaa isku xirana la yhaha kuraasa soo ma jeedin jariidatun laan asalka waa geedka laantiisa jariidada jornaalkani modi taas waa muwalad maaha kelimad asal carabiya jariida waa la yihahda jariidada kasoo baxda halkaas jariida halkaas kasoo baxda jornaaladan soo ma jeedin laakin taas waa kelimad muwalada ma ahan kelimad asal waa geedka laantiisa geed timireedka laantiisa le khaliilun waa nin magaciisa soo ma jeedin saalixun waa nin magaciisa cimraanun waa wiil magaciisa waraqatun waa caleenta geedka saabuucun dugaag iya yaqaan bahalo mataqan bahalo duurkan bahalada jooga wax cuna wey dugaag oo waaweyn kuwa dhulka ku gurgurta maaha kuwa waaweyn libaaxa shabeelka haramcaska dhulwaaga gaduudanaha dawacada xorxoorta waxa weeyaan bahaladaa wax cuna duurka jooga waay kuwaas wey wuxuu ku yidhi saabuucun dugaag ximaarun dameer dhiibun uubato ey dibadeed saddexdaas magac midkaa rabto ka dhigo yeyda waxaa tira uubato ey dibadeed haddaa tira eyga duurka jooga eygaan lagama yaqaan weligaa dibi dhurwaaha moodi shaqa iskumala ha isku qalden dabca la dhurwaaga dibun haddaad maqasho waa yeyda ama uubato dhe haddaa rabto ey dibadeed iska dhe eygaana u eg tahay bahalka tarwa namirun shabeel fahdun haramcas dhe marka fahdun haramcas shabeelku u egi kaas waa ad aragta inaad dhici karta burtuqaalatun lima bambeelma iska dhe burtaqaalatun kumathraat wadankan dhulkan anagu aan joogno soomaaliya ma yaalo marka qofo waxbuu iskaga magacaabaa wadaadada markay laqbayna qaar waxay dhahan mandharuug qaar waxay yidhahdaan calool shube qaarba waxbay iskaga magacaabaan waana iska magac oo waxa weeyaan runtii iska dhex weeye shay aan oolin wadanka magac looma bixi karo soomaali male marka laakin waa caadi waa yaqaale meelahaas markaa tagto waad arkaydaa oo mir weyn oo waxa weeyaan xoogaa madaxa u buuran oo qudaartaas la cunaya kamida wey marka kumathraat af soomaali malaha xaqiiqada qaara murcod mooday murcodna maaha islamana eka isku qaabna uma samaysna wax shaqaana iskumale murcod iyo isagu waa sidaas waxaa tiraa narjisatun geedka waa geed magaciis oo dawada lagu daro narjis wardatun ubax intaasoo dhan maxay ku tuseen marka fiiriya maskaxdiina waa inaad ka shaqaysidaan intaasoo dhan maxay ku tusayeen aan soo sheegnay yaa musamay ku tusayeen soo ma haye qaybtaas waxaa la yidhaahdaa isim daahiraha la yihahdaa intaas maxaa la yihahdaa asmaada saddexay uqaybsantaa ogaada asmaadu meeqay uqaybsantaa asmaadu maxay uqaybsantaa saddex qaybta koowaad maxaa la yihahdaa qaybta koowaad isim daahira la yhahda waa intaas aan soo sheegnay maxaa la yidhahdaa isim daahira qaybta labaad waxaa la yihahdaa isim mubhamkii wax kaaga sheega marka wuxuu ku yidhi haaulaai kuwaan haaulaai waxaa lagu ishaaraa wax jamaaca oo meel agtaaba aad gacanta ku taagaydo haaulaai hadday rabaan waa dhagxaan hadday rabaan waa dad hadday rabaan waa kutub hadday rabaan waa geedo hadday rabaanna waa bahalo waxaa leedaha haaulaai kuwaan aad leedahay wix un kooxoo meel joogaa haaulaai lagu ishaara qaybtaas wuxuu kaaga soo qaaday mubhamkii soo ma jeedid mubhamkii uu kaaga soo qaaday qaybtaas soo ma jeedid marka qaybtaas waa mubham maxaad marka ku xiga oon ku xijinaynaa waxaan ku xijinaynaa qaybta kaleod mudmar ah wuxuu ku yidhi antum oo kaleeta fiiri antum idinka kuwiinaa antum marka waa damaair qaybta kale waa damaair damaairtii wuxuu kaaga soo qaatay antum ayadaa ku imaan doonta waxaan damaairtii o dhan muxuu kaaga soo qaaday antum waxaa loo isticmaalaa rag aada la hadlaydo antum raggiinaan
marka isimku saddexaas qaybood u qaybsamaa isagaa qaybihiisa insha allahu noo keeni doona isagaa noo keeni doona amhilatun mithaalo mithaaladaasoo lilficli ficilka usugnaaday halkan waxaan ka gelaynaa mithaalo ficilku leeyahay saafara waa safray yusaafiru haddeeruu safraa saafir niiho safro dhaqaaji fiir ficilka saddex qaybood inu lahaa soo ogaana mogta haye qaala waa yidhi hadaluu yidhi yaquulu hadduu leeyahy qul dheh amina aaminu noqdo nabadgelyu helay ya'manu aaminu noqonaa iiman aamin noqo radiya raalliyuu noqday yardaa hadduu raadi noqonaa irda hadda kadib raalli noqo fiiri waa saddex qaybood soo mahan ficilku sadaqa runuu sheegay hadda ka hor yasduqu hadduu run sheegay usduq waa run sheeg waa lagaa dalbaa soo ma jeedin wuxuu ku yidhi ijtihada waa dadaalay waxbarashadiisiiu ku dadaalay yajtahidu hadduu dadaalo dadaalkii wadaa ijtahid hadda kadib dadaal istakfara hadda ka hor uu dambi dhaaf ilaahay weydiistay yastakfiru haddeeruu weydiisanaa istakfir hadda kadibna weydiiso waa kaasaa ficil amhilatun mithaallo oo lil xarf u sugnaaday min ilaa can calaa ilaa laakin ina an balaa bal qad sawfa xataa lam laa lan low lama lacalla maa laata leyta in huma o waa xuruf ayaga macno ka sugmaydid hadhin waxaa loo dareeriyey waaba saasba ayaga macno lama macneeyo ayagu markay galaan maaragtay kelimad kale ay macno ka soo saaraan ee keligood macmana male soo hore umada soo ogaanin keligood macno ma tusaan hadhin marka aw macnihi ayda carabiga laiska dareerinay saasaa la rabaa marka xuruftaana badankoodu waa kuu imaanaya mid walba qayb waxay kugu imaan ayagoo irsimka hoos dhigaya waaba kuwa ugu soo horeeya qayb kaleeto waxay kugu imaan ayagoo ficilka kor dhigaya qayb kale keligood ayagoo camal falaya qaybaba meelay kugu imaanayaan as'ila hadda su-aalahan fiiri soo diyaari adaa lagaa rabaa berri adaa lagaa rabaa su-aalahan soo diyaari maa huwa alismu ism muxuu yihi luqatan wasdilaaxan waa lagaa rabaa mathil u mithaali lilismi isimka bicashrati amhilatin 10 mithaal mana kaa yeelaya kuwii ad aan casharka kitaabka kugu yilay kuwaas waxaa lagaa rabaa inaadan ag tahay ma asmaada intaas kaliya ah inta adduunkan aadid ka keen 10 isim haye maa huwa alficlu ficil muxuu yihi luqatan wasdilaaxana kaaga rabaa hadhow fiiri ilaa kam qismin meeqa qaybood ayuu yanqasimu ficlu ficilka u qaybsama waa lagaa rabaa fiiri maa huwa almudaaric mudaaric muxuu yihi maa huwa alamru amr muxuu yahay maa huwa almaadi maadi muxuu yahay mathil u mithaali lilficli ficilka bicashrati amhilatin 10 mithaal kuwa kitaabka ka yaala kaa yeelima kuwaas inaad soo xifdaan gooni kaaga rabaa gooniyan kaaga dhegeysana laakiin maxaan kaa rabaa inaad inta duurkaan aadato ka keenato ama magaalo aad ama duur aad aadaayaan meeshaad ka doonaydo aniga 10 ficilan kaa rabaa 10 ficil inaad keentaa laba maskaxdaada ka shaqaysi bicashrati amhila maa huwa alxarfu xaraf muxuu yahay mathil u mithaali lilxarfi xarafka bicashrati amhilatin 10 xarafa lagaa rabaa xuruuf hadda inaad keeni karto umalayn maa xuruuf qofkaan wax aqoon ma keeni yaqaan bal kuwa kitaabka iskaga soo ka keena hadaa rabto 10 xuruuf moogtay barasho gooni in la xifdiyay rabtaa haye calaamaatu lismi halkan fiiri marka kelimada carabigaahu soo saddex uma qaybsanayn ya mid walba calaamada lagu dhejina qof reer magaala si wax looga dhaadhiciya waa dhimantay reer miyiga hadaad ahayd waxaan ku dhihi lahaa qaab wax loo kala calaamadeyan ku baraya reer miyiga maaragta aryaha way iskaga darmayan soo maa inay kala qowayan ka cabsanayn soo ma wuxuu samaynaya nin walbaaba neefkiisa calaamada ku dhejina bir unta dabka galsho halkaas kaga dhejina fiiri halkaas uga dhejina hadhow arigiisa waxa wey halkaas calaamad ku leey mid kalena inta bir dabka geliyo meesha lugta kaga dhejina maxaa la yidhaha mataqan af soomaaliga sumad aa la yidhaha sumad waxaa la yidhaha ariga hala sunto mid dhegtaasu cad ka goyna arigiisa o dhan dhegtaas foodeedu ka go-anya fiiri mid dhegtu kala jeexa geela waa saas maxaa la yidhahdaa sumad aa la yidhaha sumad macnaheedu waa maxay maxay tahay sumad macnaheedu waa calaamad lagu kala garto haddaba fiiri marka maxaan samaynaynaa ficil iyo ism iyo xaraf ma soo sheegnay mid walba sumadaan ku dhejayna calaamadaan ku dhejayna inta bir qaadano waa gubayna hadhow haddaad iskaa kaa darmaan ka waran marka waa maskaxumadaada marka mid walba calaamadaan ku dhejinayna waxaan ku leenahay ism calaamadaasu leeyahy ficilna calaamadaasu leeyahy xarafna calaamadaasu leeyahy
dhegeysa marka isimkeen hormarayna calaamaat lismi isimka calaamadihiisa qaala musanifku wuxuu yidhi falismu isim yucrafu waa la gartaa bilkhafdi hoos dhiga lagu gartaa kelimad hoos dhigan haddaad aragto ma ficla mase waa xarafan soo isim maxaa leeda waa isim aan leeda ilaa waaba calaamadii lagu yiqiin isimkii aad ku haydaa ficil lama hoos dhigo xarafna lama hoos dhigo ko waa tanwiini tanwiina lagu gartaa tanwiin maxaa la yidhahdaa tanwiin asaga kuu sheegi doona laakiin adu waxaad kusii garataa calaamad lagu yaqaanaya tanwiintu meeshay ku jirto laba kordhig laba hoos dhig laba god haddaad aragto maxaa meeshaas ku jira tanwiina ku jira kelimadaas tanwiinka aad ku aragta marka waa maxay kelimadaas ma ficla mase waa xaraf waa isim isku dhin waa ism waa ficil iyo waa xaraf hadhihin kelimad tanwiin markaad ku aragto maxaad leedahay kelimadan waa maxay waa isim saasaad leedahay kelimadan waa isim aad leedahay tanwiinta waa calaamad isimka lagu yaqaan sumad lagugu dhajiyey waa gar wa dukuuli lalifi walaami al inay gashaa lagu gartaa maxaa kaloo lagu gartaa isim inay al ku jirto al haddaad ku aragta kelimad al ku jirto oo lagu yidhaha kelimadan ka waran oo tiraa ka waran kelimadan ficil wey waxaa lagu lehay adiga banu aadan matid miyaad dhagax miyaad hadda ficil wey al waxa way ismi ahayn ma gasho kelimad alle kelimadaad ku aragto al inay ku jirto maxaad leedahay waa ismaad leedahay saas de waa gar maxaa kaloo lagu gartaa wa xuruufi lkhafdi iyo xuruufta u hoos dhigta xuruufta u hoos dhigtaa kelimaday gashay kelimadaas waa maxay waa isim ayadan ficilna maan xarafna maan haddaba marka meeqa calaamuu kuu sheeg afar calaamuu kuu sheeg khafda hoos dhig tanwiin al iyo xuruufulkhafdi afartooda marka halkay ka geli kelimada labana horay ka gelayan labana gadaali ka gelayan u fiirso arrintaas waa inaad ka fiirsataa ilaa calaamadda markaad fiirada ka hor meelaysan ku jirin hadaad ka fiirido ku arki mayid labaad afartan calaamo labay horay ka geli kelimada xaliga oo isimkay hore ka geli laba calaamana gadaalay ka geli isimka labada hore gashaa waa maxay waa al iyo xuruufta hoos dhigta labada dambe wey labada kelimada aaqilkeeda gashaana waa maxay waa tanwiinta iyo hoos dhiga kelimada xarafka ugu dambeeyaad ka fiirina kelimada xarafka ugu dambeeya aad khafdada ka xarafka ugu dambeeyaad ka fiirina khafdada iyo tanwiinta halkaad ka fiirine xarafka ugu dambeeya ka waran haddaad khafda ka fiirido awelka oo tira kelimada inu hoos dhiganta awelkan ka fiiraa waa eberkaaga mana arkaydi marka laba calaamo waxay galaan awelka waa labadee waa al iyo xuruufta wax hoos dhigta labana caaqilkay ka galaan isimka waa labadee waa khafdada iyo tanwiinta haye intaas inaadan sii dayn wahiya xuruufta wax hoos dhigtaa marka xuruuftiya lagaa rabaa marka xuruuf wax hoos dhigtaa isimka lagu yaqaan soo laguma dhihin haddaan laguu sheegin ka war oo lagaa aamuso oo hada lu ihahda haye isimkan calaamadiima ku jirtaa maba aqaanad leedahay xuruuf wax hoos dhigta anugu waa in marka xuruuftii laguu dhiiba si beri lagu weydiiyo xuruufta wax hoos dhigta oo isimka markay awelka ka gasho gadaal waa ka hoos dhigay isimkaas lamana godi karo lamana kordhigi karo marba hadday xuruuftan awelka ka gasho isimku muxuu noqonaa ism hoos dhiga fiiri marka waa kuwana xuruuftii wahiya xuruufta isimka hoos dhigtaa min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fi weeye wa ruba weeye wal hataa dhin aawo macnihi waaba xuruufi ma xarafaan macnala keligiis xarafaan aqra aniga meesha iga fiirso wa ruba weeye walba-u ba'dii weeye walkaafu kaaftii weeye wallaamu laamtii weeye wa xuruufulqasami dhaarta xuruufteedii weeye wahiya xuruufta dhaartu alwaawu wa weeye walbaa-u ba weeye wa taawta weye xuruufta wax hoos dhigtaa waa kuwaasa adig intaasi hayso 21 wax hoos dhigtee intaa kaliya haysto halkaan aan ku sheegi jirnay 21 laakiin kadib aan ogaanay in saas aan lagu fahmay dadka u roonaada qaacidada iskugu keena waxa dhan u sheegaan isdhahayn ilaa wuxuu lamid yahay inuu xalad dhasho la sii cadilin kaasay ku dhintay ka hor haddaad cadiliba usoo goyda xun xalad dhasho oo saxan baastay cadiliba iskugu darto noolaana war naxwadan dadka marka la barayo in loo yaryareeyo ma ahane tabar umale ay ku qaataan marka xuruufta intaasan uga gaabsayna halkaan markaan joogno haye intaasoo xaraf maxaad laba faa'iideed ka faa'iiday meeshaad ku aragto u fiirsado xuruuftan hadda lagu sheegay laba shayd ka faa'iiday markaad aragto labadaas maxay tahay ko kelimada ka dambaydaa inay tahay isim oysan ficli xaraf ahayn macnaha labaad ka faa'iida ma taqaana kelimada ka dambaydaa inay hoos dhiganto mana kor dhigna mana godna mana reebna maxaad ka faa'iday xuruuftan hadaad aragto hadda bal hadda adaan ku weydiina maxaad ka faa'iday ii sheegtay maxaa dhegeysanay laba macnaa laga faa'iday haye maxaad laga faa'iday kelimada ka dambaydo in ay isim tahay kelimada ka dambaydo in isim tahay
ilaa kelimad kale maba galaan ficli xaraf maba galaan xuruftan ko macnaha kale laga faaidi muxuu yahy hay adiga sheeg kelimada ka dambayda inay hoos dhiganta kelimada ka dambayda waa hoos dhiganta mana kor dhigna mana godna mana reebna kelimada ka dambayda waa hoos dhiganta war labadaas macna ma xasuusan kartaa berri haye bal berri aan fiirayna inaad xasuusatay in kale allahu mustacaan dadaan haddeertaan xasuusnayn berri soo xasuusan wa aqulu waxaan leeyahay yuu ku yidhi maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi wa aqulu waxaan leeyahay lilismi isimkay usugnaadeen calaamaatun calaamado oo calaamadaha maxay faa'iideynayaan calaamadahaasoo yatamayazu isimku uga soocmaayo can akhaweyhi labadiisi walaalaha yaa yaqaan isimka labada la dhalatay ficli xaraf wey ha labadiisa walaalada isku lumi kelimada cariga dhan soo saddex ma ahayn ism iyo ficli xaraf haddii lagu yidhi can akhaweyhi labadiisa walaaladu waa ficli iyo ism waa ficliyo iyo xaraf ama qaladki akrina gabor marka waxa weeyaan labada walaalihiisu waa ficil iyo xaraf buu ku yidhi marka wuxuu ku yidhi waa qul waxaan kuleeyahay lilismi isimkii usugnaadeen calaamaatun calaamado calaamadahaasoo yatamayazu uu isimku uga soocmaayo can akhaweyhi labada walaalihiisa oo labadaas waa kuwe alficli ficil iyo walxarfi xaraf uu kuyidhi asagaba kuu sheego kula sugayn oo siday waxba ma oge usii sheego kule waa dhagax camalu kuu haystaaba malaha biwujuudi waaxidatin uu ku yidhi fiiri biwujuudi waaxidatin mid helideedu ku soocmaadhe waaxidadaaso minhaa waxa weyan calaamadaha ka mida biwujuudi waaxidatin mid in la helo uu ku soocmaa isimku waaxidadaaso minhaa calaamadaha ka mida ow amase qabuuliha tana dadku wada fahmi karin maogtahay dadka agarkooda waa fahmi kara hadii la ihahda min waa xaraf hoos dhiga isimku galaa waana hoos dhigaa waana calaamad lagu yaqaan inay kelimadaas ism tahay markuu min arko kelimadiio ku jirta wuu fahmaa kelimadan inay ism tahay laakiin iyadoon ku jirin haddii la ihahdo way aqbali kartaa dadku ma wada fahmi karaa macnahaasa la raba inad fahmi kelimada mar walba un xaraf kuma jiro ee hadday ku jirtana waxaa leedahay isimka calaamadiisa waa tan aho xaraf hoos dhigaa ku jira haddaysan ku jirin oy aqbali kartana waa aqbali kartaa ad leeda waa ism waa aqbali kartaa waa maxay soo qaad xarafka hoos dhiga geli waa aqbalaho macna saxaa ka soo baxa waa saas marka kelimada xarafku inuu ku jirona waa lagu oqonsadaa inuu aqbali karana waa lagu oqonsadaa war ma fahamtay ay allowna fahamsi waaye allowna fahamsi wuu yidhi aw qabuuliha aqbalideeda waqad dakara waa sheegay yuri raximahullah waqad dakara musanifku waa sheegay raximahullahu allah u naxariistee musanifka yaa yaqaan horta musanifka oo kitaabkaan aan akrisayno mise wa iska akrisaydan ma mataqaana maxamed muxidiin sharxaanu leeyahay musanifka hadda la sheegaa matniga le waa ke maxamed ibnu daawud asinhaji kaas weya kitaabkaan iska akrisan ma booliye haddadan adoonba oqonba shiiki iska lahaaba bismi llahi kitaabka sheika waa inaad barataa oo u ducaydaa waad ka faa'iidee hadaad musanifkaba oqonsa ad u akrisane waqad dakara wuxuu sheegay musanifku raximahullahu allah u naxariistee waa maxamed ibnu daawud asinhaji waa min haadihi lcalaamaati calaamadahan isimka lagu oqonsado xaale ay ka mid yihiin kuyi fiiri isimka calaamadihiisa xaal ay ka mid yihiin wuxuu sheegay 4 calaamaatin 4 calaamo calaamada isimku waa badan yihin 30 la gaarsiiya laakiin isagu muxuu ku sheegay 4 calaamo bisu kuyi waqad dakara wuxuu sheegay raximahullahu min haadihi lcalaamaati xaal ay ka mid yihiin 4 calaamaatin 4 calaamo wahiya afartu alkhafdu waa hoos dhig ko watanwiin waa tanwiin 2 wadukuulu lalifi walaami waa algelitaankeeda 3 wadukuuli xarfin wadukuulu xarfin iyo xaraf inuu galo xarafkaas min xurufi lkhafdi ka mid a 4 afartaasuu kuu sheegay waa 4 calaamo oo isimka lagu yaqaan haye mid usoo qaba marka ama alkhafdu hoos dhigii fa huwa khafdihi fi luqati luqada dhexdeeda xaaluu ahaaday did lirtifaac kor noqoshadu kasoo horjeeda irtafaca waa kor noqday in khafada hoos u dhacay soomaa hoos u dhaca ku yimi marka khafda waa hoos dhac xagga luqa ahaana laga hadla laakiin naxwooleyda xaa la yihahdaa maxay u yaqaaneen khafdo macna muhiimaan kuu sheega haddaad hurdada iska daydo macna muhiimaan kuu sheega haddii kale waa ka socan haye wa fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda heshiiskooda maxaa la yidhahdaa khafdo cibaaratun ka waramid weeye canilkasrati kasra laga warrama allatii kasrada yuxdithuhaa uu soo dirisiinayo alcaamilu caamilku ow amase maa shaygii naaba ka naaib noqda canhaa khafdada
khafdo iyo wixii ka naaib noqdo kasrada fiiri waxaa la yidhaha khafdo kasro iyo wixii ka naaib noqdo hurdadi ma iska dayda aye waxa weeyaan macnaha aan rabaa kuu sheeg waxa weeyaan naxwe haddaad joogto 3 shaya waa inaad fahamtaa haddaadan fahmin horaba uma soco kartid caamil macmuul iyo camal aye fiiri ujeeda waa kugu soo laalaabanay dhegtaadana way ku dhacay haddaadan kala fahmin waa aadaad ugu dhibtoonay caamil macmuul iyo camal waa muhiim caamil maxaa la yidhahdaa caamil waxaa la yidhahdaa kelimada maarta carabiga mar waa la goda marna waa la hoos dhigaa marna waa la kor dhiga marna waa la reebaa soo maaha wax iska oo sidii la raba la iskaga dhawaaqayo maaha hadda haddii faruuriyu isku kaa dhigaanna reeb haddii faruuriyu kaa kala qaadmaanna iska kordhig maaha kelimadan wax ka horeeya marna kor dhigaya marna hoos dhigaya marna godaya marna reebaya waxa kordhigaas keenaya hoos dhiga keenaya godka keenaya reebka keenaya caamilkaasa la yidhahda maqasho caamil hadda xuruuftaana kamid a xuruuftaan maxaa lagu yidhi isimkay hoos dhigaan soo laguma dhihin isim kastay ka hormaraan waa hoos dhigaan soo laguma dhihin ee cawaamishay kamid yihiin marka 100ka caamilay kamid yihiin cawaamishuna waa 100 soo ma jeedin ko marka caamil maxaa la yidhahdaa waa waxa kelimadan ama kor dhigaya ama hoos dhigaya ama godaya caamil waa kaasa macmuul la rabaa macmuul maxaa la yidhahdaa waa kelimadan lagu camal falay kelimadan la godayo ama la hoos dhigayo ama la kor dhigaya waxa la yidhahdaa macmuul tii lagu camal falay waa laga shaqeeyay oo shaqada laga qabtay haye camal maxaa la yidhahdaa waa kor dhiga iyo hoos dhiga iyo godka iyo reebka camalku waa kaas war intaas ma fahamteen intaas haye hada bariyan fiirina inaad fahamteen in kale haba ka yaamina ku soo celiyo hurdayda kan kugu celaa marka waa sidaas weeye marka wuxuu ku yidhi waxa weeyaan wadalika kaasu mithlu kasrati raa'i ra'da hoos dhigeedoo kale waayo haye ra'daasoo min bakrin ka ahaatay iyo wa camrin bakarka iyo camarkaasoo fii naxwi qawlika hadalkaaga ku sugan marartu bibakrinaan soo maray iyo wa qawlika qowlkaaga ku sugan haadaa kitaabu camrin kan waa kitaabkii camar fa bakrun wa camrun ismani laba isim weeye maxaa u daliila liwujuudi lkasrati kasra laga helay fii aakhiri kullin mid kasta aakhirkiisa waaxidkaasoo min fii aakhiri kulli waaxidin mid kasta aakhirkiisa oo minhumaa labadooda ka mid ah halkaasa noo joogo allah subxana wa tacala alam sala allah wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed